agaasimaha xildhibaanada dhammaan saxaafadda waa salaamaya runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta dhagax dhigno wadadii isku xir lahayd dekedda iyo jidkii weynaa ee Soddonka oo runtii culays badan oo magaalada yaal ka qaadaya wadada maynka ee magaalada oo culays badan ay ku haysay gaadiidka ka soo baxa oo xamuulka dekedda ayuu wax badan ka tari doonaa hay'adda UN Habitat aad baan ugu mahadcelinaynaa sidoo kale shirkadda Jibcon oo fulin doonta hawshan waxaan ku dhiirigelinaya ku boorinaya inay si fiican oo sidii wadadii hore uga qayb qaataan una dhisaan ee noqoto mid quality-geedu aad u sareeyo waayo wax badan bay ka taraysaa magaalada waa mahadsantihiin wada wasir ku soo dhaw ma halkan soconayna ilaa dekedda isla markaana u leexanayo madaxtooyada galaya farxad bay noo tahay maanta inaan dhagax dhigno waxaan ka codsanaynaa ummadda hormarayo xaafadahooda wadadani inay la tacaawumaan shirkadda wadada dhisaysa iyo dawladda hoose oo aan iyana rajeynayno inay doorkeeda ka qaadan doonto si loo dumiyo cushashka ama buulalka laga sameystay wadada dhulka ay marayso ninkii wax yar ka dumaana wadadu ka qabsatoona inta ku haraysa kaaga khayr badan waxa hadda ku dhisane la tacaawim kuna qanac saasan rajeynayno inay ku qanacaan dadku lana shaqeeyo dawladda wadadan waqti badan bay nagu qaadatay shirkadda Habitat baana fulinaysa oo finance keentay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sidoo kale meerka magaalada waxaan rajeynaynaa in wax badan oo wada qabsano oo ay ka mid tahay wadadan iyo kuwa kale taba insha Allah mustaqbalka dhow wadadani waxay effective u noqonaysaa ama qayb ka noqonaysaa deked cusub oo la dhisayo Mareero wadadeedu iyadana halkan ka bilaabmi doontaa iyadoo aadaysa bariga magaalada sidoo kale to UN Habitat waxaan inta ka hor ka codsanay inay naga caawiyaan North Bypasska waxay kaloo naga caawiyaan Town Planka hawl weyn bay noo hayaan waana ku mahadsan yihiin ilaahay nagu guuleeyo waana mahadsantiin dhamaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaah